waxaa ka mid ahay maxaabiistii ku xirnay tijaalka boosaasood oo kaada shir hadda dhow bishii macnaha sanadka 21 bishii labaad ee bishii saddexdeeda ayaa waxaa soo warareen jeelka nimankii al-shabaabka waagii horena waxaa gacanteeda ku jiray dowladda haddana dowladda gacanteeda ku jira jeelka waagii hore waxa weeyaan 16 17 18 waxaa ku dhaxal nooleynay maxaabiista waxa weeyaan ninka al-shabaabka iyo ninka soo dilay iyo ninka kufsiga ku aadeysan waa isku meel ku wada jiraan saddex sano horta saasa maxaabiista ugu dhaxal nooleyn iyagoo saas tahay ayaana shabaab waxaa soo diri jireen lacag yaro hadda tiradeeda lagu qiyaas 800 waagii hore maxaabiista inta shabaabka ka aadeysan waa yaraayeen markii bateen waxaa gaarsiiyeen adigii $1 lacag soo tuuri bilaab iyagoo saas ay lacag waxa lagu soo tuuri jiray ninka la jaamac dheer waa taliyaha saddexaad xabsiga odayiis wuxuu dhihi jiray marka qolka adaa kala garanaysa ragii meesha ku wada jiraan lacagda u kala geey magaalkooda ugu qor saasa dhihi jiray jeelka iyagoo sidii tahay ayaa 2019 waxaa loo fasahay raggii telefonaha hadda markii lasoo weeraray jeelkan nin la dhihi jiray mukhtaar oona ka tirsanaa shabaab oo raggii laga soo fasahay buurta ka mid ah ayaa maalmaha ka mid ah waxaan ka maqlay isagoo leeyahay niyow nimankii shabaabka ayaa isoo waceen waxay ugu dhaheen jeelkaan rabnaa inay idinka saaro markaasaa ku yidhi daaniyow nimankan meesha ma soo weerari karaana waxaas daaniyow waxaas ama baan yihiin anaa ku yidhi nimanka marka waxaa xiriir toosa ka wada dhaxeeyay ninka la dhahay mukhtaarka dadka xerooyinka laga kala keenay sida market meeshay degan yihiin daraax iyo dharqaweyn iyo meesha lee dhuldhulo intaas fariisimo ah teeda kale mariidana way degan yihiin laakiin nimanka mariidada dega waxaa la yiraahdaa niman jugta culus loo yaqaano 13 qof 12 qof meelaha soo kala xerada joogtay waxaa looga soo tagay nin iyo waan naag u joogin iyo laba nin oo naag u joogan 3 qof waxaa la isugu yimid mariidada agteeda gasbal korkeeda meel ah nimanka saraakiisha ah oo dadkaas soo aruurinaya waxaa ka mid ahaa oo hawsha ka markaas watay nin Cabdiqani la yiraahdo wax bixinta Xasan Shaah iyo waxaa watay ninka leeyahay nin oo yar abgaala oo magaciisa la oran jiray Habiil Makaa'il waa la yiraahdaa labaas magac uu leeyahay ninkaas nin kale oo Daawud la yiraahdo cashar uu ka bixiyay waa ninka maartay sirdoonka oo meelaha farafareeyo meel walba gacanta kula jiray way hoob kale waxa ugu weynaa markaas meesha anaga tababarku nagu siinayay qoriga BKMK iyo AK laakiin nimanka jugta culus waxay wateen laba qori oo qoryaha gaagaabka la yiraahdo hoobiyaha oo laba qori ah oo fudud oo garabka ku qaadanayaan iyo qorigan Egypt loo yaqaano garabka laga rida intaas ay wateen marka miinana way wateen 3 xabbi 4 xabbaheed ma aqaan miinana way wateen goortii meesha aan ku soo wada aruuray laakiin nimanka jugta culus nooma imaan ayaga meesha ma aysan imaan askartu baa meesha la isugu keenay oo 10 bari oo kale meesha aan joognay 10 bari waxa lagu qaatay raashin meesha hilib baa lagu cunay 10 meesha lagu kala qaatay maalinta 12aad waana la soo kaxeeyay waxaana la keenay gas oo dacaray la yiraahdo agteeda ceelka mariidlu ku yaal marka tukana la yiraahdo ishay maqrib baa la isku daray waa la soo dhaqaaqay sidii loo soo socday waxa la yimid dhagax dheer oo ku beegan gurixiis galabtii adigu abaara 10 meelaha 10 oo kale meelaha oo kale la yiraahdo waan dhaqaaqaynaa waan soo dhaqaaqnay adigu goor abaara 10 oo kale ay tahay waxaan fariisanay meesha muaskarka u ahaan jirtay tababarihii hore madarshoon cunay adigu gabalku wuxuu noogu dhacay meel u dhaxayso adigu dhagax dhaabuur iyo madarshoon inta u dhaxayso oo kale noogu dhacay waa sii garaagarnay maqrabadii goortii la tukanayo waxaan ka dhaadhacay marka dhagax dhaabuur jiirada ka baxdo oo mijiyaan ku dhacdo dariiq meesha mara oo dariiq lugaada oo isticmaalaan dadka reer baadiyaha oo dadka xijiistayaasha halkii baan ka dhacnay waa sii garaagarnay waxaan seexanay ceelka mijiyaan hoos buu ku yaalaa dalcad buur yar baan seexan
waxaa la yidhi rag bay waardiye u direen xaraasay yidhahdaan xaraasadii waardiye u direen idinka kale waxaan dhahay gudaha saax waxaan reermiyi meel degan baan marka waayo noogu yara dilaacay reermigaana ka wareeganaa la yidhi waa ka yara wareeganay meel yaro jar baan marnay nin reer baadiyaha marka meesha soo maray waxay dhahay marka war hal saax oo halaga dhaca bas meeshii baan karaya dhulka waa la dhabacsaday dhulkii baa imbadhaaxa way yidhahdaan hal imbadhaaxay dhaheen marka adu waa la dhabacsaday dhulka maqribkii baa galay waxaa la yidhi waa jaqaafinaynaa qoladii markii jugta culus aheed barta aan joogno dalcad yar aan soo fuuli doono nooga beereen waddadii baa dhinac uga beereen oo xag meel kale mareen oo jid kale annaguna dariiq kale aan ku dhacay halkii baan ku soconay waa soconay adugu gooray adugu qiyaas 4 saac 5 saac meelaha oo kala habeennimo iyo laamigii ku beeganna marka cabirkiisi waa meel ay buunta ku taalo meel wareegan ay deegaantiga ku yaalo marka waxaan dhimeedyaala marka woof loo maraayo rasaarin iyo gawaari kale oo adugu baawartaan maarta fuusiyaasha koonfur laga yiraahdiy waxyaabahaas aan maro goortaan ku dhawaan marka hal wada firistaal yirahdi gawaarida naga gudbiyso gawaaridii baa wayna dhaafeen badankooda wayna dhaafeen hal baa soo socday u kaadiyaa la yiri kantuna dhaafay kii baana dhaafay hal bobsi laga dhaxbaxaa la yiri goortii saas waa la fadhiyay loo kacay anigu qoriga sawkii baa waday waa iska daba dhacay marka jilka wax iga gaaray dhaqaaqi waa saadani is adkay dhaqaaq saan u soconay waxaan tagnay meeshii fuustiyo biyaha yaaleen een maaragtay yaa la tagay waa adugu 6 saac meelaha oo kale marka cabir adugu haddana waxaa la yidhi 12 saac adugu 10 saac oo kale aan dhaqaaqno hayla dhaqaaqo burihii baa la fuulay waa la socday meel aan saas u dheerana maaragtay waadiga aan ka dheerana gobolka noogu dhacay la socday marka saan u soconay meel baan marnay reer baadiyada kii ari u joogo goorta meeshaan marnay marka reer miigana ma aysan arkin meel baan fariisanay shaay baan ku karsanay waxaan noo qabtay muxaadaro marka maalintii ugu horreysay marka meesha marka laga soo baxo waxaa la yimid geed baa la yimid oo magaalada geeskeeda ah oo aan ka fogeyn meesha ciidanka lagu kala qaybiyo ah qaybna waxay aaday laamiga qayb jidgooy laba jidgooy loo kala qaybiyay ciidanka qaybna waxaa loo diray xagga saldhigga ee meesha xabsiga jeelka kuwa u dhacay jeelka ay aadeen kuwa kalena jidgooy ay sameeyeen labada qaybood ay kala galeen marka labadaas qaybood markay geeskaas kala aadeen annagana bartii aan joogno hooshii baa dhacday adigu baarihii 5 saac meelaha oo kale rag soo yaacaya noo yimid 5 saac bar meelaha oo kale rag soo yaacaya noo yimid rag markay noo yimaadeen waan miiri raggan kaxeey qaar annaga naga mid ah sidii baan ku baxnay waa sii cararnay meel wuxuu waaga noogu bariyay gacal la yiraahdo gotogi baan galnay laba nin oo naga baxda ka sheekeynaysa marka la yiraahdo xasan iyo ninka leey Macaawiye labadaas nin oo baxsadeen marka halkii bay dawladdu nagu soo qabatay sidaan meeshaan maalin iyo habeen la luqaynay meel oo aalka magays algubad meel la dhahay isku kulmay ciidanka marka algubad isku kulmay ciidankii arbari ka imaaday iyo ciidankan oo mariile ka imaaday meesha isku kulmay oo anoona muxaadareeyay mariile ciidanka ka imaaday waxa ahaayeen 70 qof baa ahaa u maleynaya albari ciidan badan ah bismillah ciidanka badanaa dhankaas ay ciidankii waa la shalqeybiyay mid waxaa qabsaday mid ugu kor lahay midna waxaa loo reebay kan oo macalin mursal wax yar loo reebay midka kale usuna majaamac la dhahay loo qeybiya bis dagaalkii si loo gaal lahaa noo qiimeen anaga jidgooyo kor ayaa ku jarnay marka dagaalkii ay soo galeen dagaalka hadday galeen maxaabiistii waxaa soo faran jeelka hoos soo galeen muddo oo badda 2 saac oo socday bis kadib waa soo baxeen banaanka maxaabiistii sii daayana nooshaan si u soo bixiyeen bis maxaabiistii al-shabaab ahaa iyo dishacab ay wadanay jeelkii markuu galnay maxaabiistaa bixinay 60 oo al-shabaab ah ilaa 20 qof oo shacab ah nagada marka buuraha dhaxgalnay shacabkii iyo al-shabaabta ayaa ka haysanay buuraha dhaxgalnay buntland marka 8 saac ahayd salaada subax marka meesha ka baahnay 8 saac ahayd salaada subax buuraha ka dhax tukanay saas waa marka saas waa ku bariyay buntland oo
meelaha kusoo qulqulaysa aragnay buuriya hor u dhex galnay difaac iyo waxaasa galnay ciidanka waa shalshaalatay markooda waa hurdahayeen waa la soo kiciyay war buntland baa imaatay kacow waxay dileen 4 qof meeshka dileen intay qabadeen waxaa nagatay 5 baa malaynay 5 buntlandtii maqrabba marka warhada baa dhacow galay marka oraha dhacday baawarta oo nalkada arkayna marka buntland haratay laamagaa soo gudubnay anoo meelaha soo marnay baawar shacabta joojinay